haddii aad markaa kugu horeysay aad soo boqoto janaalka ha hilmaamin subscribe aad dhahdo sidoo kalena aad gambaleel ku furato adigoo ka heli kara sheekooyin aad u xiiso badan sida sheekadan oo kale. haddaba aan isla ogaano qisada gabadhan. beri ayaa waxaa jiri jiray laba walaalo ah, magacyadooduna waxay ahaayeen Kiin iyo Axmed. labadoodii waalid waa ay geeriyoodeen, waxayna uga tageen guri yar iyo beer yar oo guriga hortiisa ku tiilay. balse nasiib xumo, carada beerta ayaa waxay ahayd mid qalalan oo waxba aysan ka bixi karin. Kiin ayaa walaalkeed ku tiri, maxaan samaynaa? waad u jeeda waxba ma beeran karno oo beerteenu ma soo saarayso wixii aan ku beerno, baahi ayaan u dhiman doonaa ugu dambeyntii. Axmed ayaa ku dhahay walaashay Kiinay, sidaas ha u fikirin, kaliya aan dadaalno, wixii inaan qoranne ma waayi doono. labadii walaalaha isma aysan dhiibin, lacagtii yar ay haysteenna way ka dhammaatay. kadibna deen ay waxay u doonteen naag taajirad ahayd oo lagu magacaabi jiray Martha, ayagoo u sheegay inay u baahan yihiin lacag yar oo ay ku bilaabaan ganacsigooda. ayadan kumaysan adkeenin, isla markiiba waxay usoo bixisay xoogaa yar oo lacag ah oo waxay ku tiri waatana. waxay dadaalaanba isla markiiba way ku khasaareen ganacsigooda, ayagoo deeman kale kasoo qaateen niman kale. nimankiina maalin walba intay usoo noqdaan ayaga waxay ka jijabin jireen alaabtooda, ayagana marar qaar way garaaci jireen. kadib markay ka waayaan lacagtoodii waqtigii lagu ballansanaa, labadii walaalo ahaana waddo kale uma furnayn oo keynta ay iska galeen si ay cunno uga soo helaan oo miraha ka baxaya keynta ay iska cunaan, halkaasna ay ku noolaadaan. maalin gabadhii Kiin ahayd oo keynta dhex lugeynaysa ayaa waxay aragtay geed miro macaan badan ay ka baxayaan oo xayawaanada xitaa ay aad u jecel yihiin. dusha sare ayay kala socotay. geedka waxaa hoos tagnaa biir oo wax ka cunayay. ayadiina maysan dhawaanin oo waxay ka cabsanaysa biirka, balse waxay qorsheynaysaa markuu ka tago inay u tagto geedka, kadibna ay kasoo gurato miraha. geed ayay ku dhuumsaneed ilaa intuu ka baxay biirka, kadibna banaanka ay usoo baxday. waxayna ogaatay miraha siday u malaynaysay inayba ka macyihiin. kadibna geedka ay laan kasoo goosatay, gurigooda ayayna kusoo laabteen ayagoo ku beeraya beertoodii yareed. isla markiiba geedka oo soo baxay, weliba si dhaqsiyaha ayuu ku koray, miro badanna waa uu dhalay. Kiina waxay tiri, maanta ayaan faqriga ka baxaynaa oo deemanka dhan waa iska gudaynaa. balse isla markiiba waxaa timaaday dabayl aad u daran, welibana xawaare sare ku socotay, waxayna daadisay dhammaan mirihii saarnaa geedka. Kiin iyo Axmedna ayagoo murugaysan ayuu midba midka kala fiiriyey, kadibna mirihii ay iska soo gurubsadeen ayagoo rajeynaya in laga iibsado, sidaasna ay lacag ku helaan. mirihii qaar guriga ay dhigteen si ay u cunaan, qaarka kalena Kiin ayaa soo qaaday si ay u iibgeyso suuqa. ayadoo maraysa waddada dhexbartankeeda ay waxay maqashay oohinta shimbir yar. shimbirta ayaa ku leh, icaawi baliis, icaawi waan oomanahay, icaawi. Kiin oo ahayd gabar aad naxariis badan ayaa isla markiiba soo xarartay dhanka ay shimbirta, waxayna isku dayaysaa inay caawiso. kadibna waxay ku tiri, shimbiryahay yar, oon miyaa ku haya? hoo mirahan cun. oonkii gaajadaba way ku daynayaan, isla markiina waad caafimaadaysaa. kadib markii la caawiyay shimbirta, waxay heshay xoogaa yar oo firfircooni ah. ayay u mahadcelisay gabadhii caawisay oo xaaladda adag ayadoo ku jirta kasoo gaartay, ayadoo ku dhahaysa, aad baad u mahadsan tahay, nafsadeeda ayaa badbaadisay. adiga halkan maxaad kasoo doontay? waa xilli doora, qoraxduna ay daran tahay. Kiin ayaa ku tiri, imaanshayga halkan waxaa ka dambeeya qiso aad u dheer. waxayna bilowday inay uga sheekayso shimbirtii qisada familkeeda. shimbirtiina waa ay dhegeysanaysay. shimbirtiina waxay ku tiri, gabariyay ha murugoonin, aniga ayaa ku caawinaya, dhibkaan oo dhanna waad ka baxaysaa. Kiin ayaa iyadana ku tiri, miigu cayaaraysaa? runta ii sheeg. shimbirta ayaa ku tiri, maya ma kugu cayaarayo, oo dhagaxan ii qabo marka hore. kadibna shimbirtii dhulka ayay u degatay, waxayna ku tiri, dhagaxaan aan ku siiye waa dhagax cajiib ah, 1 sano ayaad haysanaysaa, waxaadna ku duugaysaa geedkaaga hoostiisa. kadibna geedka ayaa kuu dhalaya miro aad u fara badan, balse waxaad xasuusnaataa sanad kadib maalintan oo kale waan kaa qaadanayaa. Kiina waxay tiri, waan ogolahay, waad dhammaadsan tahay, sidaad ii caawisay. wayna ismacsalaameeyeen labadooda. Kiin waxay usoo noqotay guriga, walaalkeed ayaan uga sheekaysay sheekadii oo dhan. waxayna tiri, waa kana dhagaxa, hoos ayaan ku duugaynaa. labadoodii ayaa si wada jir ah waxay ku duugeen geedka hoostiisa dhagaxii ay shimbirta soo siisay. subaxdii xigtay, geedkoodii waaba kana isagoo weynaaday, welibana miro fara badan oo dahabiyaa dhalay. labadii walaala ahaani mirahaas ayay iib geeyeen oo suuqa markay tageen waaba la kala boobay. dadkii kale ee suuqa uga soo horeeyey mirahoodii cid ka gadata waa ay waayeen, oo miraha ee Kiin iyo Axmed keeneen ayaaba dadkii oo dhan cajibiyey. ayagana isla markiiba taajirin ayay noqdeen oo dadka magaalada ugu taajirsan ayayba noqdeen. meel walba ay aadaanne
dadka salaan ay u saari jireen, welibana si kal iyo laaba ay u salaami jireen. Isku soo wada duubo, naagtii deenka kasoo qaadan jireen ee Maarta ahayd ayaa ayadana markeeda deen ka rabto si ay ganacsi ugu samaysato. Kiina ay ogaatay in islaantii deentay kasoo qaadan jireen maanta ayaga deen ay uga baahan tahay. Kadibna walaalkeed ayay ku tiri, ma ujeedaa Maartadii aan lacagta kasoo deensan jirnay maanta hoosteena ayay joogtaa, waa inaan cashir aan u dhigaa oo aan ku baashaalaa. Kadibna Axmed ayaa ku dhahay, walaashay miyaad soo waalatay, maxaa kaa khaldan? Soo ma ogid naagtan inay na caawisay mar aan u baahnayn, welibana ayadoo aan ka shakinin ayna deemisay lacag. Balse Kiina ay ku adkaysanaysa go-aankeeda ah inay ku cayaarto. Waxay ku tiri, lacagtaan ayaan ku siinayaa deen ahaan, balse waa inaad kasoo qabsataa biyaha, oo biyaha ayay uga tuurtay. Welibana aad bay ugu faraxsan tahay oo waxay ku qaraxaysanaysaa islaantan. Markaas ayay ku tiri, marba haddaad lacag haysatid qof walba oo ku ixtiraamaya hoostaada ayuuna imaanayaa. Kiin ayaaba waxay dadkii deemisay lacago aad u fara badan. Dadka markay u soo celin waayaan oo is yidhaahdaan iska togtooga, way ku cayaari jirtay oo haraanti iyo laad ay isku dari jirtay. Kadibna waxay ka qaadan jirtay guryahooda oo sidaas ayay dadkii oo dhan ku dhacday. Maarta ayaan u sii macisay ficilka ay samaynayso, weliba hadiyad ay u keentay ayadoo ku ammaanaysa inay shaqo fiican ay hayso. Kiina way dhegaysanaysaa erayadeeda oo dadkii in la dhibaateeya ah. Halkaas ayna kasii qaadatay dhiiranaanta ah in dadka sii dhibaatayso, oo waxay ku tiri, hadalkaan kuu sheegay waa uu saxan yahay, weliba dadkan waa inaan hantidooda aan ka qaadanaa, guryahooda aan ka qaadanaa, kadibna aan iska ceerinaa, haddii kale way naga soo horjeysanayaan. Kiina ayaa ku tiri, waa sidaad sheegtay, waana samaynaynaa. Axmed ayaa arkay walaashiis inay kasii darayso marba marka ka dambeysa. Wuxuuna ku yiri, maxaad sidan ugu samaynaysaa qaraabadeena iyo weliba dadka masaakiinta ah? Adigaba waad soo martay noloshan adag ee faqriga ah, ma waxaad ku farxaysaa inaad ku sistaagto dadka masaakiinta aan waxba haysanin? Waxay ugu jawaabtay, annaga xilligii hore waxaan ku noolay nolol adag, balse cid noo naxariista ma aysan jirin. Haddana dadka waxay noo ixtiraamayaan lacagta aan haysano, marka waa inaan tusnaa qiimaheena iyo awoodeena. Waad fahamtay aan filayaa. Ma fahmin ayuu ku yiri, mana u baahni inaan fahmo. Adigana kuguma habboona inaad waxaan aad samaysid iska daa. Miyaan khaldan ayay ku tiri, oo maanta inaan lacag haysano miyaa khalad ah? Haddii aadan ku qanacsanayn noloshan raaxada ah, ku laabo noloshaadii hore, cid ku celinaysaa ma jirto. Balse aniga dib uma laabanayo, maana laga yaaba inaan laabto. Axmedna go-aan ayuu qaatay oo subaxdii xigtay waa iska baxay. Kiina way arkaysaa walaalkeed oo ka tegaya, balse afkeeda umaysan kala furin, ayadana way kasoo jeesatay. Waqtigu wuu socday, welibana 1 sano ayaa kasoo wareegatay, waxaana lagu dhow yahay maalintii ballanteed ee shimbirta ay soo noqonaysay. Kiina ma rabin inay qaniso dhagaxaas, meel ayay kaligeed fadhiisatay. Fikir ayayna gashay, ayadoo isweydiinaysa, dhagaxan haddii aan celiyo hantideedu dhan way baaba'aysaa miya? Ama waxaan ku noqonayaa faqrigaygii hore? Lagama yaabo inaan celiyo, waa inaan wax un aan sameeyaa. Askar ayay soo kaxaysatay maalintii ballanta ahayd si ay ugu ilaaliyaan dhagaxa geedka hoostiisa ku duugan. Waxayna ku tiri, waa inaad taxadar badan aad samaysaan, indhihiinuna waa inay kala furnaadaan. Cidna uma ogolaan kartaan geedkan inay usoo dhawaato, xayawaan iyo qof waxa u ahaadaba. Ayagana waxay ku yidhaahdeen, okay, waan ilaalinaynaa. Isla markiiba waxaa timaaday shimbirtii oo raadinaysa dhagaxeedii, balse ilaalada ayaa u diiday, wayna ka ceeriyeen meesha. Shimbirtiina ayadoo xanaaqsan ayay baxday. Waxyar kadibba waxay la soo noqotay kooxo badan oo shimbiro ah. Ayagina waxay weerar ku qaadeen askartii meesha ilaalinaysay. Kiina waxay ogaatay shimbiraha inaysan joojin karin, kadibna qorshe ayay la timaaday. Maxaan sameeyaa hadda? Shimbirihii weerar ayay nagu soo qaadeen. Alla, maxaan sameeyaa? Qorshe ayaan hayaa. Kadibna way soo carartay, badil intay soo qaadatay way geedkii hoostiisa qoday oo ay qotay. Kadibna waxay kala soo baxday dhagaxii ku duugnaa, afka ayayna gashatay. Kadibna waa ay laqday oo caloosheeda ayuu tagay. Isla markiiba ayadii ayaaba noqotay mid iftiin badan, oo gacmaheeda iyo lugaheeda waxay noqdeen kuwo iftiimaya. Gacanteeda meeshay ku taabatana isla markiiba isku bedelaysaa dahab. Shimbirtiina waxay arkaysaa wax walba, ayadoo careysan ayay waxay ku tiri, waa inaad xasuusnaataa maalinta ballanta iga qaaday, maantan waad iga baxday, waad ka shalaayi doontaa iyagow. Maxaan ka shalaaya ayay tiri, wax walba waan taabto waxay isku bedelayaan dahab. Aniga ayaaba noqday naagta ugu taajirsan adduunka. Shimbirtiina way ka tagtay. Gabadhan farxadeedu umaysan sii soconin siday u malaynaysay, oo shimbirtii waxay u sheegtay ayaaba run ah, wax walba ay taabatane way isku bedelayaan dahab. Xitaa raashinka ay cunayso wuxuu isku bedelayaa isla markay gacanteeda ku taabato dahab. Awoodna uma laha inay cunto dahabkaas. Waana markaas markii uu bilowday shalaaytiinka oo ay ogaatay inay baxar weyn ay dhex dabaalanayso, ayadoo dahab iyo hanti fara badan oo kala duwan haysatay. Xitaa dadku way ka fogaanayeen oo way ka cararayeen. Naag ayaa waxay tiri, gabadhan wax walba ay taabato waxay u bedelaysaa dahab.
waa runta, ha isugu dhawaanina, iska ilaali, haddii kale adiga ayaa dahab isku bedelaya. Kiin way xanuunsatay, sariirta ayayna kortay, balse waxay heli weysay cid daaweysa oo shaqaalaheedii oo dhan way ka baqayaan. Waxay ku tiri, i caawiya, intaan ka badan ma adkaysan karo, i caawiya kaalaya. Balse nasiib xumo, cid caawisa ma aysan helin. Maarta ayaa iyadoo qoslaysa ku tiri, adiga miyaad riyoonaysaa? Cid u baahan agtaada inay timaado ma jirto waqti xaadirkan. Halkaaga iska jiif oo geerida halkaaga ku sug. Waxayna ku faraxsaneed dhibaatada haysata gabadhan. Gabadhana waxay ku tiri, iga raali noqo, anigana famil ayaan leeyahay, ma raba dahab inaan isku bedelo, famil ayaa i sugaya. Kiin waxay isku dayaysaa inay ku qayliso, naagtaan ku qosqoslaysa. balse Maarta ayaa ku tiri, qof dhimana ayaa tahay, umana qalantid aniga inaad ila hadashid, ee iska jiif meeshaada. Wayna ka tagtay ayadoo urusii kacisatay shaqaalaheedii. Baahi, murugo, kalinimo ayay qolkan weyn kula jirta. Waxay aragtay hadiyad uu walaalkeed hadda kahor uu siiyey. Waxayna soo xasuusatay noloshii walaalkeed ila nooleed, inkastoo ay ahayn faqiirin, haddana farxad ay ku wada noolaayeen. Waxayna rabootay oo u hilowday walaalkeed inay la kulanto mar kale, ayadoo weliba ka tegaysa hantideeda iyo dahabkeeda. Waxayna tiri, waa inaan u tagaa Axmed oo aan arkaa walaalkay. Sidaas ayayna uga soo tagtay gurigeedii weynaa ee qasriga ahaa, welibana quruxda badnaa. Waxayna soo martay waddo aad u dheer, welibana rafaad ah. Ugu dambeyntiina way heshay walaalkeed oo ku jira guri yar oo qadiimi ah, balse dadka ku jira dhammaantood way faraxsan yihiin, welibana way isla xafladaynayaan. Waxayna ogaatay walaalkeed inuu yahay mid dabeecad wanaagsan, welibana dadka oo dhan ay jecel yihiin. Waxayna tiri, anigoo kale ma ahan oo waxaan haystaa dahab aad u fara badan, balse hal qof oo raba agteedana imaada ma jiro. Albaabkii guriga ayay furtay, kadibna waxaa arkay dadkii hore usoo gumaysan jirtay oo diinta intay siiso kadibna hantidoo dhan ka qaadan jirtay. Isla markiiba waxay ku bilaabeen xanaaq iyo qaylo. Waxayna ku dhaheen, naagta dhulkeena dhacda ayaa timaada maanta, wejigaaga naga horleex intaanan xanaaqin. Kiin waa ay shalaysay, wax kaloo ay samaysan way garan weysay. Jilbaha ayayna ku istaagtay si u raali garayso dadkan. Iga raali ahaada, qof walba oo idinkeedii ka mid ah, wax walba aan ku sameeyin iska kaya cafiya. Saacan laga bilaabana waxaan ballan qaaday inaan noqon doono qof wanaagsan. Sidoo kale Axmed, adigana iga raali noqo, walaalkay iska kaya cafi. Waxaan noqday qof xun. Axmedna wuxuu ogaaday in walaashiisa ay ka shalaysay waxa ay samaysay, isagiina waa u jalba jabsaday. Dadkii la joogana waxuu ka codsaday inay iska cafiyaan walaashiis, oo wuxuu ku yiri, walaashay waa gabar yar, iyo wax badan fahamsantaana khaladkaas maysan idinka galeen, aniga idin baryaya iska cafiyey walaashay. Waxaan idin ballan qaadayaa walaashay inay kasoo laabato wax alla wixii ay samaysay. Dadkiina way ka aqbaleen oo waxay ku dhaheen, waan cafinay walaasha. Isagiina waa u mahad celiyey, isagoo faraxsan ayuu walaashiis soo aaday. Waxuuna kusii faraxsan yahay walaashiis inay khaladkeeda ay fahantay. Kiin ayaa ku tiri, walaalkay halkaan imaan, hadday kale dahab aad isku wada bedelaysaa adigoo dhan. Aniga wax iiga muhiimsan ma jiro inaan arko walaashay oo kortay, welibana caqligeysatay, welibana isa saxaysa oo khaladkeeda dareemaysa. Isla markii gacantiisa qabatay wax isku bedelay dahab. Dadkii oo dhanna way yaabeen, wayna naxeen. Axmedna wejigiisa waxaa ka muuqda farxad. Kiinna waa isku naxday, waxayna bilowday inay oyso. Way tiraahday, shimbiriyahay kaalay, iska kii cafi, khalad ayaan kaa galay, shimbiriyahay kaalay. Way calaacashay oo waxay tiri, khaladka aniga ayaa galay, walaalkay ma uusan gelin. Iyagoo siga qaabta qaabileed aniga ayaa qaab. Isla markiiba shimbirtii ayaa timaaday, albaabka ayayna ka soo gashay ayadoo duulaysa. Waxayna isku bedeshay naag kadib markii gudaha u soo gashay. Markaas ayay ku tiri, Kiin, tani waxay ahayd cashir aan adiga ku dhigayay, dadka hantidooda inaad damacdid iyo waxyaaba ay leeyihiin khalad ayay kugu ahayd. Tan ugu muhiimsanna waa inaad ilaaliso mas-uuliyadaada iyo ballamaha aad qaadid inaad oofisid. Kiin waxay ku tiri, waan ku fahmay, waana samayn doonaa, balse walaalkay ka fur waxaan ku xiran. Markaasay ku tiri naagtii, maadaama aad khaladkaaga qiratay, mar labaad ayaan ku caawinayaa. Waxayna dahabkii ka furfurtay wiilkii Axmed ahaa oo sidiisii caadiga ay ku soo noqday isla markiiba. Sidoo kale dhagax ayaa ka soo baxay gabadhii Kiin ahayd oo waxaa gacanta ku qabsatay naagtii. Axmed iyo Kiinna si farxad la ay isku fiiriyeen, waxayna xaqiiqsadeen marnaba inaysan kala maarmayn oo walaalo ay yihiin weligood. Maalintaa wixii ka dambeeyey, Axmed iyo Kiin waxay ka wada shaqaynayeen weliba si wada jir ah beertooda. Waxaa kaloo caawinayeen dadka xaafadda la degan, ayagoo barayay qaabka loo beerto geeda macaan badan. Geedkii miraha badan usoo saari jirani waa uu usii waday oo miro badan ay usoo saaraa ilaa iyo xilligan. Sheekadan halkaan ayay ku eg tahay. Labadan sheeko ee bidix iyo midig saaran midka dooro, ama janaalka gudaha u sii gal si aad uga heshid sheekooyin aad u xiiso badan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay, hilmaamina subscribe dhaato oo aad kusoo biirto janaalka, sidoo kalena muuqaalka like.